Min bestämda känsla är denna. Det finns en terrorromantik i vissa S-kretsar som borde besvära S-ledaren. Herr talman, Ulf Kristersson, anklagar du Jamal Hamas för att vara en terrorromantiker? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maalinta ku wacnaato maanta baarlamaanka waxaa ka dhacay dood dalkan Sweden hadee oo ay ku doodayeen gudoomiyayaasha xisbiyada dalkan ka jira waxaa soo dhex gashay arrin looga hadlayay xisbiyadu inay isku turtuurayaan ra'iisul wasaaraha dalka oo ka tirsan xisbiga mudaraadka ayaa waxa uu dhagaxaan ku tuuray xisbiga horay talada u hayn jiray iyo haweeneyda maamusha xisbigaas ama gudoomiyaha u ah oo la yiraahdo Magdalena Andersson wuxuu ku yiri waxaa jira dad eraygu isticmaala jiro terror romance oo ah in ay yani qurxiyaan romantic oo u sameeyaan argagixisada so wuxuu ku sifeynayay in uu jiro wiil la dhaho Al-Haj oo baarlamaanka ku jiro oo asalkiisu Falastiini yahay ayaa hadda ka hor wuxuu ka qayb galay kulan ay lahaayeen Falastiiniyiintu magaalada Malmo xisbigiisa wuxuu yiraahdeen aadin isaguna uu ka dhaga adeegay meeshii uu tagay marka waxaa la sameeyay shaqo joojin baa lagu sameeyay xilalkii uu hayay baa laga qaaday baarlamaanka lagama qaadi karo maadaama qof la soo doorto yahay laakiin xilalkii yar yar oo baarlamaanka dhexdiisa ahaa ururadii uu ka shaqeyn jiray baa laga xilnibay marka de xisbigan kaleeto socialka ayaa la yiraahdo oo de Soomaalida intooda badan ay u codeysana iyaguna weligood bay dhagaxaan ku tuuri jireen xisbigaas waxay dhigi jireen cunsurigu la shaqeeya oo cunsuri daboolan oo sidaas ah marka isaguna maanta Janice buu helay maanta wuxuu ku yiri de idinkuna waxaad xisbigaas waxaa ku jiro dad argagixisada qurxiya oo wanaajiyo oo de wacneeyo oo romantic oo arkaba inay yihiin marka dhibaatadaas waxay ahayd in xisbigaagii adiguba aad ka falcelisaan oo aad de iska sifaysaan runtii ninkaas Al-Haj la yiraahdo inagu ma aynan ogeyn laakiin isla maanta bay soo baxday sheekadu ay caan noqotay wiilkiisa xaaska uu qabo iyo caa'ilada reerkii oo dhan oo ka kooban 36 qof ayaa waxay dhammaantood gurigoodii madfac ugu soo dhacay oo baabi'iyay oo dilay dagaalka hadeertan ka socda Gaza oo Israa'iiliyiintii ayaa baabi'isay so marka waxay tiri ma waxaad ku tilmaamaysaa Al-Haj inuu yahay qof argagixisada romantic ka dhiga sidoo kale ma ogtahay baa beetrin wiilka uu sodog u yahay mina gabadha uu sodog u yahay iyo qoys gabadha uu sodog u yahay qoyskeeda oo dhan in ay ku baaba'een hal madfac lagu soo riday dhowr casho ka hor hadday se qalad tahay kulankaas ninka uu ka qayb galay maxaad u celin kari weydeen oo يعني دولة باتينة هذا يبقى أرجع kulmayso maxaa ugu ogolaateen mila talada dalka idinka haya marka dhagxaan baa la isku turtuuriyay so iyaguna dhagxaan buu weligood ku tuuri jireen inay cunsuriyiin yihiin iyagoon de of course cunsuriyiin ma aha laakiin dhibca la iska raadinaya ninkaana maanta dhibcihii uu raadinaya halkan bay ka gashay bal aan dhageysano waxa ay inoo sheegeen iyo sida ay hadalka isu dhaafsadeen. Jag konstaterar bara det som många har vittnat om, att det var ett arrangemang med Hamas-företrädare och att den person som Magdalena Andersson personligen säger har vigt sitt liv åt att bekämpa Hamas var där och deltog. Är inte det en ganska uppseendeväckande uppgift? Min bestämda känsla är denna. Det finns en terrorromantik i vissa S-kretsar som borde besvära S-ledaren. Herr talman, Ulf Kristersson, anklagar du Jamal Hamas för att vara en terrorromantiker? Hans sonhustrus familj utplånades för några dagar sedan. 36 personer.
bortsvepta i det här fruktansvärda kriget. Och du menar att han är en terrorromantiker som står bakom Hamas? Det är en fruktansvärd anklagelse, Ulf Kristersson. Du är landets statsminister. Hur kan du göra så här? waad aragteen halkaas ayaan kusoo gabagabeynaya oo anigii mar kale anigii Yaasiina waxaan idinkaga tegayaa warsan iyo weersan ilaawin inaad follow garayso share garayso like garayso bye bye